بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan mahad gaar u celinayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan markii ugu horeysay ahayn inuu na soo dhaweeyo runtii waxaan ku soo aadnay ciyaarihii gobolada oo aad iyo aad u qurux badan anigu wali waxaan ku soo aaday ciyaarihii ka horeeyay oo xaafadaha finalkoodii marka ayada xataa aad u qurux badneed isdhexgalka iyo markaa aragto iyo gobolka Banaadir soo u taabagalay aad iyo aad ugu farxatay waxa igu xigtay ciyaarihii gobolada isdhexgalkooda iyo aragtidooda markaan aragnay bersamaadkii soo xasuusanay runtii aniga waxaa la yidhaha horta Bashiir Cilmi Maxamed inaan ku bilaabo ahayd Bashiir Jenyo waxaan u ciyaaray kooxdii LLBB Jenyo isla markaasna xulkii qaranka Soomaaliyeed ciyaaraha dibaddana horseed mar walba waa raaci jiray oo waxa ka tirsanaa nuskayga waa horseed nusna Jenyo ahayd ma sha Allah marka ciyaarihii igu quruxda badnaa oo aan waxay ahayd ciyaarihii Central Africa barigii bartamaha oo ka dhacayay Tanzania ani Maxamed waa ku jirnay ani Maxamed Ismaaciil waa ku jirnay waxaan soo istaagnay final waxaan soo garaacnay dowlado waaweyn oo mar walba qaadi jiray marka ciyaartaas finalkii aan ciyaarnay waxaan filayaa in goolkii ugu horeeyay aniga aan ka dhaliyay nasiib darro laakiin waana laga badiyay oo 2-1 laga badiyay waxa igu soo xigtay ciyaaraha gudaha markii la yiraaho ciyaartii Jenyo iyo horseed oo aan runtii dhihi karo ciyaar qurux badan ahayd runtii waxay ahayd ciyaar aad u qurux badan waad garan kartaa waxaan ku kala badinay 4 anaga lahayn iyo 3 Jenyo ma 4 lahayn 4 aan ku badinay laakiin waxaan la qaadan karin ciyaarta quruxdeeda gool markaan dhalino waan naga daba dhalinay ilaa 3 waa isdaba soconay saacadii oo ku taagan aniga 2 gool aan dhaliyay Yusuf Shaqaaq waa kan ila jooga kii 3 oo dhaliyay kan 4 qalaco dhaliyay laakiin qalaco ana cross u keenay waxaan aad 90 daqiiqo ku taaganay madaxu ku dhaliyay saasan ku badinay marka taasi bas hataa Sheekh Zaad waa nasiyay waanu cazumay xagga waa tagnay ciyaartii hadda intaan ka sheekeynayna tii u dambeysay waxay ahayd anagoo xul waxaan aadnay Kuwait aan tagnay Kuwait markaan tagnay ciyaartii Kuwait markaan ka qayb galnay ciyaar saaxiibtinimo ayaga waxay rabeen in ay waxay islaan tijaabadan ku barbartay markay 6 bilood waxay jireen Brazil markay ka yimaadeen oo nin sagaal la yiraahdo macallin weyn watay markii laga yimid waxay yiraahdeen Soomaaliya noogu waca aan iskaga barbaranaya show ma oga Soomaaliya inay xul culus leedahay marka qaahirna oo soconay oo ahliyan aan rabnay inaan la ciyaar bisha 4teeda waxaan tagnay Kuwait ciyaartii ugu horeysay markaan la ciyaar 1 gool ugu badan way qaadan waayeen waxay naga saareen runtii hotelkeen naga saareen nin Soomaaliya noo baxay oo Soomaali dhab ninkaasa gurigiisii 2 dabaqa nooga baxay halkaan joogo ilaa Soomaaliya uma soo noqon karno ciyaartii kale laga rabaa qaahira 5 maalmood oo nahay training xataa meelan ku suubin waa noo diideen bacadka ku suubinay bacadaan ku suubin ilaa aan ka dhoofeen ninkaas doon noo leeyahay waa u mahad celinaya marka ciyaartii hal ciyaarna waa na eriyeenba marka tii kale qaahira iska aadnay taasaan ciyaarna Soomaaliya iska nimid marka ciyaarihii igu yabna ahayd اوكي magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Ismaaciil Cali bahay sportina waa ka dhashay labadiiga waaweyn waa ciyaarayeen Jenyo iyo horseed way ciyaarayeen labadiiga waaweyn anigana kii horseed baan ku labeeyay Maxamed Ismaaciil Cali ciyaartooyda kooxda ciidamada qalabka sida horseed iyo xulka qaranka Soomaaliyeed ciyaaraha hadan ka sheegayo kullu Bashiir baa igala hormaray ciyaarta finalka galnay oo waliba annaka aan iska lahayn koobka maalintaas kooxo badan horyaalka Uganda horyaalka Zanzibar horyaalka Malawi dadkaas oo dhan safka marnay ka wada badanay
semi finalkan waxaan la ciyaaray horyaalka dalka Uganda KCC meel la yiraahdo Tanga ayaan kula ciyaarnay hal iyo eber baan uga badnay maalintaas aan final ku soo baxnay nasiib daro City Council of Kampala City Council hal iyo eber baan uga badnay annaka Kenya isku soo baxnay runtii koobka annaka iska lahayn intii la doono ciyaar iyo farsamo dhinac kastaba laakiin waxay door bideen inay awood noo sheegtaan si aan caadi ahayn si sportiga ka baxsan in lagula dhaqmeyn oo macnihii dagaal iyo dil iyo waxaan loo joogin refereegana wuxuu oran jiray socod hal socdo gool baan ka dhalinay Bashir baa markaas goolka koobaad noo dhaliyay 2 gool bay naga dhaliyeen 2 bay ku dhamaatay horta farxad noo tahay final ciyaarno ayaan daran waxaan noo tahay anagoo jecelinan Tanzania madaxda dalka Tanzania Dar es Salaam bay ahayd waa jecleen maalintaas koobkan u noqono horyaalka bariga bartamaha Afrika laakiin kaalinta labaad lafteeda ma xumo aniga Maxamed ahaan waxa taariikhi aan baan jecelahay oo isaadii Muqdisho garoonkan weyn ee meesha ku yaalo koox baadama China noo dhiseen koox baan loo keenay iyo annaka xulka qaranka 3 gool baan maalintaas uga badanay 3 goolna ilaahay bay igu monteysay in aniga xulka qaranka Soomaaliyeed galabta 3 gool hat-trick inaan u noqdo 3 gool galabtaas aan ka dhaliyo marka ciyaartaas lafteeda taariikh bay tahay mana iloobayo sababtoo ah nin xulkiisa qaranka soo fanaanad buluuga calan buluuga xidig leh shacbigiisina saanaysi ka diran u buuxan taada bulsho loo buuxo ku guuleysay kollayba anigu waa dhammaystiray ma ahan anigina waxaan keenay dadkii ila shaqeynayay team work madaxweynaha ka maqla mar walba wada shaqeynaynay laakiin ninkii dhammaystiray baan ahaa 3 gool laakiin dad baa ila soo shaqeeyay oo Bashir ka mid yahay marka madaxweyne aad baan ku mahadcelinay runtii ummadana daawanaysana dee waa u jeedaan ciyaartooydiisii ilmihiisii inuu maanta ku soo dhaweeyay hoygiisii marka aad baad u mahadsan tahay taariikhdaana ku xusi doonta insha Allah horena uma dhicin waana sugeynaa insha Allah marka hore waxa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaheena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii waa first time mid meel madaxtooyaha taasna waa markii ugu horeysay marka waan ku faraxsanahay odayaasha kale iga soo marka waa ku faraxsanahay horta nidaamka iyo magaaladan waxay ugu dambeysay almost dhowr sano waayihii dambe waxaa la jira xamar nabad ma aha ma aha mala socon karo intaa jirto isbaaryaal ayaan runtii ilaa iyo hadda xaafadeeda ka soo baxaa meel alla meesha rabo waa mara caadaan u maraa marka taasna waxaa waaye amniga maanta aan ku raaxaysanayno aan ku nasanayno horta ragaa noo dhaliy kheyr allah siiye dhalinyarada lagu aamina amniga ayaa mudnaanta koowaad horta runta ayagaa iskale oo habeen iyo maalin soo jeedo jawigana arkaysaan ciyaarahan goboladana waa astaan oo nabadgelyo waa astaan nabadgelyo meelaysan nabadgelyo ka jirin saan looma soo wada baxeen ciyaaro saan looma fiidsanin saan annaga xataa iskuma imaanin taas waxay ku tusinaysaa calaamadna ay u tahay inuu wadanka nabad yahay waa kasii jeclaa lahayn runtii in dhalinyaradan hadda hoteelada la dejiyay in xaafadihii sida waagi hore ahaa jirtay barnaamijkaas inuu noo soo noqdo ilaa aniga xataa gurigay cunugaa ku hejira yarkaas waa isbaranay runtii wallaahi Dubai uu taga waxa ka hadlaya waa 8 ciyaarihii gobolada Nugaala nologa keen yarka volleyball dheeli jiray Maxamuud al dheeli jiray gurigeena ku soo degay ilaa Cabdicasiis degnay Cabdicasiis garow waa ku qoran Nugaala ku qoran waqti gobolada gurigeena ku soo degay yarka waa isbaranay muddo ku soo degay marka daba Dubai iska aad ilaa waa fuday marka Dubai yarka degay yarkaas marka maxaa isku soo noqonay
isku reer ma nihin wax ma nihin yaa isdhexgalkii ayaa ku midoobna dubai shopping oo iisoo sameeyey you can imagine dukaan u geey wuxuu yidhi wax allaala waxaa rabta qaado kan ila dhashana ma iska dhaafee kuwaa qaraabadeedba ma jirto marka isboortiga nidaamkiisa waa kaas isdhexgalkan haddaa helno yaa nabadda horta way sii adkaanaysaa way sii fiicnaanaysaa marka waxaa kula tali lahay madaxweyne in la sameeyo next time hadduu ilaahay fursad ku siiyo yaa clear way حتى حراتي ما جت واحد ما جت ما جوج حتى ما جت نسفورين حتى مركب ما شاء الله مركب ما شاء الله انت نورت وحاوي ما حد هذا ايضا انا اسكله ومسؤولين مركب مدة هذا كله واحد ربع انا كسي بوغاديو ان قلنا مسؤولين او عياره ciyaaraha sidaa ka warqabna horta sideedaba hadda hoose usii socdaan waxaana loo baahan yahay in barnaamij loo diyaariyo oo ah barnaamij oo lagu xoojinayo systemkan hadda jiro marka waa inaan u helnaa in barnaamij loo diyaariyo ama ayaga soo diyaarsadaan oo lagu horumarinayo sportigeena hadda gobolada marisa gobolada xataa qaarkood atletica ma laha orada ma laha basket ma laha waxba ma laha marka taas xoogaa dib u dhaci keena in soccer kaliya la qabto yaa kubad cag kaliya la qabto xoogaa annaga xataa dan saas ah mana ugu jirto marka waxaan rabnaa sportiga sida guud ahaan berisamaadka loo samey jiray in sportiga game kasta la ciyaaro basket ha noqdo orada ha noqdo wax kaas plus hoteeladan hadda qarashka badan lagu bixinayo in la iska dayo oo xaafadihii isdhexgal inay dadka isbartaan waay qofka gobolka yimaada qofka deegaanka degan inay isbartaan waay inay walaaloobaan waay waxyaabahaas sportiga sidiisaba integration waay integrationkaasaa la rabaa in la sameeyo marka waa kuu mahad celinaa mar kale sida sharafta leh oo aad nagu soo dhaweysay marka waa mahadsantiin mid tan kale maarata inaan ku raaciyo okay horta waxaa marka hore ka tegay oo aan iloobay horta magacayga waa Dr. Yuusuf Maxamed Maxamuud Yuusuf Shaqaaq naadiga howlaha guud oo LPP ama Jenyo sida loo yaqaan lambarka 8aad oo qadka dhexe ayaa ka dheeli jiray qaranka Soomaaliyeedna runtii waa u saftay dhowr jeer ilaa waayihii dambe ilaa ka dhoofo marka ciyaarihii igu qiimaha badnaa haddaa soo xasuusta waxaa ka mid ahaa ciyaaraha jaamacadda carabta oo aan nimid final annagii ciraaq maxamed waa isla dheelin oo isla joognay kabtana ahaa marka waxay nooga badiyeen si dirqi ah markaas anaa kabtan ahaa marka si dirqi nooga badiyeen ma habeenka weli goolka annaga ku hormarna uma leena mise ayaga nooga marmar hal qof aa naga bixiyey taas marka guusha xataa waa lehen markaas ya exactament marka taas marka ciyaartaas waxay ahayd ciyaarta noogu qiimo badneed intaan qaran dhiilay ama dhiilay marka maasha allah localkana waxay ahayd ciyaartii aan annaga iyo madbacada finalka iskugu nimid oo dhowr jeer 2 game isku celceliyey ilaa marka dambe nalaga badiyey ya marka waa kaa marka waxaa la waa mahadsantihiin 100%. magacayga waa Aweys Muuse Arbow ku magac dheer Aweys Fundi ahaana ciyaartoydii kooxda Horseed qaybta difaaca lambarka 2 1977 aan ku biiray kooxda Horseed marka hore waxaan ka ciyaari jiray dhaxda laakiin kooxda difaac la'aan baa ku dhacday macalinka wuxuu ii gartay in aan difaac ka dheelo waxaan mahad u celinayaa maanta anagoo nalagu casumay villa Soomaaliya madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed
dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo nin isboorti ah oo annaga naga mid ahaan jiray bacaadadana ka yimid haddii refriina ahaan jiray marka fursaddan maanta una siiyey aadan ugu mahad celinaynaa dhammaanteena qiimaha una siiyey maanta magaalada waa joognay muddo 2 bilood ma arkin sida dad noo soo dhaweeya maanta madaxweynaha soo noo soo dhaweeya waxaan leenahay dadka annaga raba inay ignore nagu sameeyaan ma idin suurtagalaysaan leeyahay mana ignore garayn kartiin taariikhdana xusaysa marka ummadda Soomaaliyeed sidoo kale wadaninimada ay ku jirto magaalada wanaageeda vacation-keena iyo markaan meel aadayno dadka vacation meelaha Yurub iyo aadi jiraan anaga wadankeena ayaan u soo aadaynaa si aan dadkeena hore waqti oo la qaadano marka wanaaga maanta Soomaaliya iyo caasimadda ka jira qof walba og yahay aadan ugu faraxsanahay taasna amaanteeda waxa iska leh maamulka wadanka madaxweyne farmaajo iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed marka waxaan leenahay ummadda banaanka joogta dhahaysa magaalada waxba ka jira kana ka jira waxaan leenahay waxaas wax ma ka jiraan kaalay arka marka aadan ugu mahad celinaya inta ka shaqaysay warkayga intaasan kusoo koobaya ciyaarihii ugu xiisaha badnaa maadaama aan ciyaaro badan ka qayb galay laakiin cadowgeena ugu weyn wuxuu ahaa kooxda Kenya cagweyn la dhihi jiray tii Kenyan soo qaadanaya tii kale ma soo qaadanaya maadaama anigoo yar ahaa dhalinyaradii Serie B-ga ahaa waxaan ka soo bilaabay kooxda Kenyan ka soo bilaabay anigoo jacayl weyn u qaba laakiin waxaa la yiri waxba ma tirays iska tag laakiin junior aan u dheelay 1976 Yusuf Shaqaaqi iyo Bashiir iyo kadibna waa 76 Serie B waxaan u dheelay kooxda Genyo Bashiir markuu leeyahay Sheekh Zaid waqtigiisii kooxda badinta aan badinay aniga waxaan ka mid ahaa kooxda Genyo bareemi waxaan la siiyay 1,000 shilin oo shilin Soomaaliya war dhigle aan ku qaybsanay 1,000 shilin guriga Nuur Xuseen gurigiisa ayaana lagu siiyay oo war dhigle ku yaala kadibna kooxda markaan ka soo tagay waxaan ku beeray kooxda Horseed oo isla sanadkii ku xiga aan ahaa ciyaartooy xulka qaranka ahaa marka taariikhdeedu ciyaarihii ugu fiicnaa aan dheelo maadaama aan Kenya ka soo tagay oo cil u qabay macalinka wuxuu isoo safay kooxda ugu hore gamekii ugu horeysay Kenya uu isoo safay Yusuf Shaqaaq waxa iga hor yimid oo balooni la gabgabayo hadii Yusuf Shaqaaq markaan jafay uu yiri war mi dilaysa waxaan ku shaqadeeda ku ciyaaranayo shaqa loo yidhi marka farxadaha kooxdan waxaan ugu badinay 1980 koobka General Daawud anaga iyo waxa soo baxnay kooxda Genyo markaas waxay ahayd Horseed waa eedigi waay koobka General Daawud marka Maxamed Ismaaciil Cafiif waa naga maqnaa Maxamed Ismaaciil kaliya wadanay oo weerar noo ahaa hal iyo wada ugu badanay kooxda Genyo koobka General Daawud meeshan ku qaadanaa farxadaha kale waa badan yihiin laakiin waa soo koobaya maadaama adiga Maxamed Ismaaciil noo dhaliy السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق ومحمد مسلمين حاجي وحان أصوع عياري كوحدة من شيبيو 79 إلا إيو 83 وحان مهد بلان وجيدين يا مدحوينها جمهورية الصومالية محمد فرماجو وان اسكميل كسوة كورني حسوستا أو نحسوستي أيا وحلا سيستان لهين ما دام عيارنا أي سعودان maadaama my legends ay meesha fadhiyaan dadkii iga waaweynaa aan ku dayan jiray anigana nasiib aan helay inaan ayaga soo raaco taas waa fursad labaad aad iyo mahad balaaran ugu jeedinayaa iyo qoladii kale sida sharafta leh meesha noogu soo dhaweysay midda kale ciyaartii igu fiicneed aan dheela oo aad igu fiicneed waxay ahayd annaga iyo waxaa ciyaarnay kooxda mudbacadda maalintaas lambar 8 ayaan ka dheelayay horyaalka iyo hogaaminayeen 13 dhibcood ayagoo istaadi Muqdisho lagu xareeyay حتى مركز مشاركة لو كردية ومالنتي مشاركة لو كردية وين هو جامينا ين هريالك
marka ciyaartaas ay ugu farax badneed oo aan 3-2 miya 3-1 aan ugu badinay waa maalintaasna lambar 8 ciyaaraya qadka dhexaan dheelayay marka mar koowaad iyo labaad iyo saddexaad waxaan leeyahay waa fursad aad u fiican maadaama uu madaxweynaheena oo asagana uu isboorti ahaa uuna soo xusuustay bahdii isboortigii hore uu soo xusuustay ayaa wax weyn aan la qaadan karin ah maasha allah tabaaraka allah khayr allah siiyo waxaana leenahay inta ku hartayna ilaahay sama iyo sahal ha kugu dhameeyo marka aad baan ugu faraxsanahay maanta in madaxtooyada aan imaado oo weli si kedis ah oo lagu soo yeeray waa iyadana fursad qaali ah waaye waa markii ugu horreysay aan imaado aan la kulmo inkastoo reer siyaala ay mar kasta cadaadis isaari jireen ee leeyihiin warheedhe saaxiibkaa waatuu madaxweyne noqday maxaa meesha ka haysaa adi marka aniga isboorti ahay saaxiibkeena bulutika loo galay soo ma marka xoogaa waa marka aad baan ugu faraxsanahay in aan la kulmo maanta 3 sano iyo dhowr bilood kadib mahad balaari ayaa u jeedinayaa maadaama uu legendskii soo xasuustay iyo haddana uu jeclaystay ciyaarta maanta finalka in aan la fiirsano taasna waa wax weyn ayay noo tahay ciyaarahana waa ciyaar muhiim ah isdhexgalka ku saabsan saaxiibo badan ayaa baranaysaa dad badan hadda ayaa ku saaxiibay oo gobolada kale ka kala imaadeen weli mostly sanadkan qaarkood gobolada qaarka ka yimid xamaray ka dheeleen meel badan ay kasoo wada ciyaareen meeshaas ayaa kuu sheegayso asoo gobol kale kasoo ciyaaray ama asoo banaadir ka ciyaaray in koox kaloo gobol matalaysa inuu u dheelo waa saaxiibtinimo isdhexgal aad muhiim u ah waaye marka waa mahadsantiin